السلام عليكم ورحمة الله. taageerayaasha ku xidhan Somali Time Films and Vlogs waxaan ilaahay subscribe ku qabtaa maalin wanaagsan waagi baryaaba wajigu ku tusaa. waxaanu kaga hadli doonaa mowduuceena maanta qoyska qabsaday baraha bulshada iyo dhammaan meediyaha sida Facebook, Twitter, Snapchat iyo meelo kale oo kala duwan. qoyskani markii hore waxay soo bandhigeen waji aad u wanaagsan kaas oo ahaa waji ku dayasho mudan halka ay gabadhu ahayd gabadh asturan ninkeeduna uu haysay si wanaagsan u dhaqma iyagoo mararka qaar isku soo dulduubayo quraan iyo arrimo kale oo wanaagsan ay kaga daydaan baraha bulshada. waxay haayeen qoys model wanaagsan leh waxa lagu dayin jiray si aada waxay waliba indhaha adduunka aad u sii qabsadeen kadib markii ay Cabdallah tiri sayigayga waxaan u hadiyeeyay saaxiibadda qaaliga ee sister Sara laakiin arrinkii maxaa uu ku dambeeyay muxuu noqday muxuu isku bedelay waxaan kaga hadli doonaa qodobada iyo qodobo kale mowduuceena maanta fadlan subscribe ku qabta channelka. waxay sheekadii ku dambeysay ama ay kusoo biyashubatay inay tahay sister Sara gabadh ay hore isku yaqaaneen ama ay xiriir lahaayeen sayiga Cabdallah taasi oo ay iyadana saaxiib waxaa la inoo sheegay markii hore inay saaxiib ahaan u siisay laakiin sheekadu nooca ma aha waxa la yiri xiriir hoosaad ayaa ka dhaxeeyay Cabdallah oo iyaduna ahayd gabadh asturan oo aad ugu dayan jiray waxay sheekadii kusoo gabagabowday inay tahay gabadh dharka xaysiisa kadib markii aanu kasoo xiganay website iyo meelo kale oo kamid ah baraha bulshada. haddaba maxay talow u qiyaameen indhaha adduunka waxaa la sheegay inay markii hore ahaayeen dad iska danyar ah kadibna muuqaalada badan ay soo jiidanayeen ay ku helayeen subscribe iyo views badan taasoo ay baraha bulshada caan kaga noqdeen. ujeedadooda ugu weyn waxay inay caan noqdaan adduunkuna uu ku daydo indhaha adduunkuna ay qabsadaan laakiin sheekadii waa ay isbedeshay.